dhaawacmay 56 qof dadka dhintay waxaa kamid ahaa dad Soomaali ah oo watay dhalasho wadamo kale 3 qof waxay wateen dhalashada wadanka Kenya hal qof wuxuu watay dhalashada wadanka Canada hal qofna wuxuu watay dhalashada Great Britain laba qof waxay wateen dhalashada wadanka Mareykanka 3 qofna waxay wateen dhalashada wadanka Tanzania laakiin dhamaantood asalkoodu waa Soomaali 56 qof ee dhawacyada qaba ayaa lagu daweynaya qaar kamid ah isbitaalka guud ee magaalada qaar kalena goor dhaweed ayaa loo kala qaaday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kadib markii wax looga qaaban waayay gudaha magaalada Kismaayo dhaawacyadooda oo aad halis u ahaa dadka dhintay intoodii badneed ayaa goor dhaweed lagu aasay magaalada Kismaayo waxaana aaskaasi ka qayb galay madax ka tirsan Jubbaland oo kamid yahay madaxweyne Axmed Madoobe ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan wasiirkiisa amniga iyo saraakiil kale oo ciidan waxaana moodaa in xaaladdu hadda ay soo degtay isla markaana la ogaaday khasaaraha baaxadiisa wali waxaan la soo saarin khasaaraha ama tirakoobka khasaaraha hantiyadeed ee gaaray hoteelka iyo goobihii ganacsi ku dhadhawaa sawirada laga soo qaaday ayaana muujinaya burbur ballaaran oo gaaray dhismayaasha hoteelka iyo sidoo kale xaafadaha ku dhow sidoo kale waxaa la arkayaa gawaarib fara badan oo taalay parkinka hoteelka iyo agagaarihiisa in iyana ay gubteen isla markaana ay burbureen waxaana ay soo taraysa cambaareynta loo jeedinayo qaraxaasi iyo tacsida loo dirayo dadkii weerarkaasi lagu dilay madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkaasi wuxuuna tacsi u diray qoyskii iyo ehladii iyo dadkii ay ka dhinteen dadkii halkaas wax ku noqday wuxuu sidoo kale hay'adaha amniga federaalka iyo kuwa Jubbaland ku amray in ay talaabo degdega arintaasi ka qaadaan hadii aanu dib u milicsano dadka caanka ah halkaasi ku dhintay waxa kamid ahaa dad siyaasiyiin dad wariyaal ganacsato sidoo kale dad magac bulshada ku lahaa waxa kamid ahaa xildhibaan hore oo baarlamaanka federaalka ka tirsan haddana u tartamay xilka madaxweynaha Jubbaland Shuuriye sidoo kale waxa kamid ahayd gabar caana ah oo wariye ahayd oo waliba bandhigyada muuqaalada la duubo ee lagu soo bandhigay YouTube-ka caan ku noqotay oo Canada ka soo guurtay oo la oran jiray Hodan Naaleeye